السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت وحكوا عسومان كنال كينان ويلا هو مقعبه عبد الرحمن. وأنقول له العلي هذه بنقول له وشاركها. أي إن وهنا ذوق تعريفي مقعاقة. حتى المقع يقص تحن كنت تعرفيه وحوي عبد الرحمن عبد الله أحمد وكم مقع دير عبد الرحمن دقو وأنا كله وشاركها السؤال هذا ودين سأنتبه. إن وجهرين سؤال شكوات ما حد شعران له هذا اللي قوله هو حلو وعسوم أما حلو قصيو حد دوران لهيد. والله صاحب بدن سؤال شكل جوابان سكو ضيو وحن دوران لهنيو هالبجيل هي عانقيل. هي الجيل يعني جيل. وين أبونا الصوماليات كيف تقول شيء أما أتاجرته. waxaan taageeraa abwaan gaariye waxaana ku taageeraa waa abwaanada kale wuxuu kaga duwan yahay misaalka ku badan amba waxa loo tashbiiha ama humaaga waxay Soomaalidu taqaan bagabeediisa ku badan marka saadarteed waan jecelahay waana abwaan aqoonyahana oo dhinaciisu waantana ku wanaagsan dhinaca maadigana ku wanaagsan waay su'aal kale oo su'aal saddexaad asalkii Soomaalida iyo halka ka soo jeedo bal wax naga xasuusi kulli xagga waxa tan ku xeel dheer wax ka yaqaanay والله ولا لو هديها كان اسكو دايو horta Soomaalidu san maqlaan taariikhan aragtiyo kala duwan baa jira marka anigu aragtida aan markan waxa akhriyay markan wax badan dhageystay waxa la yiri waxay ka soo farcameen Aasiyaanka iyo Afrikaanka marka san taariikhdan uu ku maqlay in badan aan dhageystay Cabdiraxmaan waxaad noo sheegtaa 5 maahmahood oo dumarku leeyahay ama dumarka u gaara والله ولا هذا مد كمية اسكو ضيو وحلالي قبر حنلان كو قبر يحو غاليمو يو تيكرا دوان وان لقي marka maamaha dumarka taasan ka hay aad bad ugu yartahay maamaha dumarka kol xagga ragga isku badantii ma laga yaabaa boodkii habeesko go'omaaliyaaro wiisha gadoodi geeska rayska gelisa garigiyo halaago galowgiyo shimbiruhu way su'aal kale 5 maahmood oo geel leeyahay maamaha geela wax ka mid ah noo sheeg walaal kulli xagga geela waan isku wanaagsannahay nolosheeda wax ka mid ah kulli geel jira waan soo noqday marka geel hadaan maahmaadiis isku dayo geel waa geel baa leeyahay wixii gooyana waa geel calow geelo xoolo kuma jiro geel duqdiis durduisa baa leeyahay arakiisana maxaad moodi marka saddex xasan inoo sheegay geela mahmaadis way saddex mahmahood baan ka faa'iidnay geela waa yahay darwiish Cabdalla Xasan xageebu ka soo jeedaad filaysaa ama taariikhdiisii wax kamid ah ama dagaaladu qaaday bal wax kamid ah nooga taabo iyo waxaad ka aaminsan tahay adigu والله ارتلو waxaan ka aaminsanahay hadii Sayyid Cabdullah Xasan aan isku dayo nin wuxuu Ilaahay ka sako Ilaahay horta ninkaas inuu badbaadiyay Soomaalida wala kristaamayn lahaa kristaan midhan baa laga dhigi lahaa marka ninkaas Ilaahay noo soo diray waxa leeyahay maalmaha kamid ah berigii waxa uu maka ku maqnaa sheekhu ayaa wuxuu ka soo degay dekedan berbera kadib waxa leeyahay mid yar Soomaaliya weydii magaciisa dadna wuxuu adeer magaca markaas John Maxamed ma yuxur John badi dhacay u dhaafin waayay kadib maalintaas Sayidku fikiray waxa ku dhalatay inuu gaalada la dagaalamo cudud iyo maskaxda kula dagaalamo hadana ayaan daro Soomaaliyin baad la degtay laakiin intuu asuu halgami karay uu halgamay marka maanta inaga taagantay way su'aal kale waxaynu ku saqaynaa gabagabadii barnaamijka su'aashu waxay ku leedahay bal dagaaladii Soomaalidu ay la gashay cadawgooda shisheeye wax kamid ah ama mid kamid ah noo sheeg dhinac kasta ha ahaatee kulli dagaal ka dhaca Soomaaliya dhexdeeda ama Muslimka dhexdiisa ka dagaal lagu ma sheego waa dagaal sokeeye laakiin kii ka dhacay si dagaalkii Xabashida dagaalkii Kenyaanka xaga inta la galeen dagaal fog ama kii gaalada bal wax kamid ah nooga sheeg wallahi waa calo hadaan qaas u dayo nin Xabashida horta in badan banisaynay Xabashi am xaro Soomaali aad bay isku hayay oramadu bir dhaw dahay marka hadaan ka xusud dagaaladii Soomaaliya ay gashay ay la gashay nimanka odayaasha waxa kamid ah dagaalkii Mulaaxo iyo dagaalkii Raamaale iyo dagaalkii 77
iyo dagaallo kale oo fara badan oo imika aanan hayn markaa awooyaasheen amba aabbayaasheen niman aada u geystayaana bay ahaayeen kuwii waxaa laga yaabaa aan 1 milyan gaadhayn oo xabashaday kusoo labalaamayso inay ka muquuniyeenay u diideen inay neefsadaan markaa meeshii la dhihi jiray ogaadeen iyo la isku dhihi jiray dhulkaa hawd bay aada uga dagaalami jireen markaa xabashida cadowtinimo ay naga dhexaysa dadka qaarna halkay ka dhahaan waa walaalihiin waxaad arkaysa nin weyn oo aqoon-yahan oo wasiir sheeganaya haba xil sare loo dhiibay oo dowladda ka tirsan oo kale waa walaalihiin xilligii soomaaliya xabashi walaaloodan u garan maaye nimankaa already waan is haynaa markaa dagaallo badanna way dhex mareen ilaa haddaad xataa taariikhda dib u raacdo ilaa xasan gurey ilaa maalinkan maanta aynu joogno waan is haynaa dee imakana dagaal hoose nagu hayaano hadday qaad tahay hadday baradhado ay soo sunayaan tahay wax badan bay nagu hayaan nimanka tuubiyaankaay markaa waxaan leeyahay war dalka loo gunto kolley aad iyo aad aad halkaa u taabatay Ethiopia bal waxaad sheegtaa faa'iidada iyo faa'iido darrada ay nagu hayso kolley waxaad sheegtay qaadku inuu faa'iido darro yahay sidoo kale inay dalkeenii bar ka mid ah qaateen xagga hawdka oo uu siiyay Ingiriiskii bal halkaa maxaad ka odhanayd kolley dib mooyee faa'iido naguma hayaan bay ayaan u malanaya anigu dawada horta wax dheefoo anigu aan garanayo marka oo nimankaa ayagaa inagaga timaado ma jirtaba baradhada oo yaroo sunbay kusoo mudaan calow waxaad baradhada oo yaroo sunbay kusoo mudaan marka faa'iido ma leba fawaa'ido ma leh imaka baradhada waxaad u garanaysaa calow berigii hore 2007 8 ninkii garanaya jiray baradhadeena hore marka bariiska lagu dalaco waxay ka soo ururtay 5 kilomitir laakiin tan imaka si kasaadii loo kariyo ma baabaayso waxaan maqlay waxa badan Jonas laga qaado waa baasha Ethiopia dadkii Jonas ay ka qaadeen marka baasha baradhaday aad baga wala dagaalameen haday sun tahay haday mukhaataraad tahay haday Allahu subhanahu wa ta'ala kulan haday tahay khamri marka nimanka aad baan isku haynaa waxaan ku weydiinayaa su'aal kale bariyahan dambe waxaan arkaynaa Ethiopiaanka oo soo galaya wadanka Soomaalida saa ugu soo qulqulaya aan xadna lahayn halka maxaad ka oran lahayd kulli iyagu Suuriyaanka iyo Carabta iyo danba keentay laakiin Ethiopiaanka aan baahidu keenin hadda disaa soo galaya Soomaalida maxaad ka dhigayaa isaga wallahi calow waxaan ka dhihi lahaa horta nimankan way naga badan yihiin waa 130 milyan marka way hore 100 milyan ma liijiray laakiin waa 130 milyan 130 milyan ahaadaan inaguna waxay nahay ma yaati qoladeena riyoqoygu ama Soomaaliya hadii la isu gooyo 20 milyan wax laga yaatay in badan waa la gaari marka nimanka inta gidaarada saxatay xabaqlayaasha waa wallahi hadii nagu soo yaacama islaanan iska celin kareen calow dadkii hore iyo dadka naday isku tayo maaha oo yeeshay waxaan rag waxa ahayn mabda leh inaan ka surwaal ka dhacaya ma kan sheegada xiran inaan wax iska celin karayo maaha marka nimanka daala shirkooda naga qabtay leena imkana badeena looga baqayayo seelaa ay nimanku higsanayaan war nimanka hamigoodu halkaas ma ka higsanayaan niyo marka inta soo gabagabeynay ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya kulay waxaad nimanku waxay ugu haystaan badda san maqlana wadanka Soomaalida waxa uu yaqaan wadanka Ethiopia kamid ah u yaqaanin oo manhajkooda lagu dhigaa haddaba su'aasha ugu dambaysay maxaad kula talin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed kulay adduunka dhalinyaro baa u hadhaysa waaweyn kuway tageen iyagu wayna daayeen loo dhalinyarta waxaan kula talin lahaa Ilaahay laga xisho umadiisana laga xisho marka adigu wax noqoto ba dalkaaga iyo dadkaaga wax u tari kartaa laakiin in maanta tahriibay maanta Yurubna wax kaaga ma horeeyaa waad iga arkaayo walaal intii tahriibtay waa in badaas cuntay iyo in Liibiya lagu dilay iyo in hadii Ilaahay biidankeeda leeyahay gaalowdaba subxaanallah wal ciyaadu billah umuluxidin noqoto diinta ka baxday qaar feminist qaatay marka waxaad leeyahay war dalkan idinku idii baahan yahay mid kala Soomaalidu 90% waa dhalinyaro hadana ayaan daradeena China waxa la aanu dhalinyaro waa nooleen qofka u yar yahay konton jir 100% waxa laga yaabaa 6 weey ba ogtiyaan ku gaadhay denago dhalinyarteena buuxdo 90% aynu nahay dhalinyarta dalka lagu qiimeeyo oo inta intermayno hadana ay bilaatay noqono waa mushkilad Soomaha marka walaal halka inta soo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq